nabigu sallallahu alayhi wasallam qofka mu'minka ah ayuu wuxuu ka waramay arrintiisu caynka ay tahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidka Suhayb ar-Rumi fi sahih Muslim ajaban li amri al-mu'min waxaan aad iyo aad ula cajabaya oo aad ula yaabsanahay oo aad ugu bogaya oo cajab geliyay qofka mu'minka arrinkiisa markaasuu nabigu faaleeyay arrintu siday tahay inna amrahu kullahu lahu khayr waxaan ula cajabayo mu'minka arrintiisoo dhan baa khayr ah arrinkiisoo dhani waa khayr waa mu'minkii miyirka qabaa laga hadlaya arrinkiisoo dhan baa khayr ah walaysa dhalika liaxadin ila almu'min tilmaanta caynkaasa qof aan mu'min ahayn ma leh buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo arrintu maxay tahay in asaabathu saraa'u shakar haddii barwaaqo iyo ladnaan iyo caafimaad ilaahay siiyo dad iyo dunyo iyo diinba alla dhaqaaleeyo dhaqo waa kana mahadnaq buu halkan la fadhiya salaadii waa dhamaystiraya quraankii buu akhrinaya sadaqadii buu la baxaya ilaahay buu caabudaya waa khayr buu ka shaqaynaya ma malayn karaysa arrintiisu shakar fakana khayran lah khayr bay u tahay wa in asaabathu daraa'u hadday dhibaato ku dhacdo musiibo la soo gudboonaato sabar waa sabraya fakana khayran lah khayr bay u tahay buu nabigu salawaatu llahi wasalaamu calayh sidaa awgeed sida caafimaad qabku uu nicmo u yahay ayaa xanuunkuna uu nicmo u yahay marka waxaa laga helayo aad u fiirsato sidaa awgeed baa xanuunku wuxuu ku dhacayaa qof yar iyo qof weyn mid qani ah oo maalqabeen ah mid faqiir ah mid muslim ah mid gaal ah mid wanaagsan mid xun kulli xanuunku waa ku dhacaya mid uu dhaafaya xanuunku ma jiro xanuunkaasi waa imanaya waa ku dhacaya sidaa awgeed baa laakiin dadkaasi natiijada ka soo baxaysa kala duwanaanaysa qaarkood kala duwanaanaysa in imtixaanku imanayana ilaahay quraanku inoogu sheegay fi suurati al-baqara aayaadkaynu ku tukanayni wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-juu'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri as-sabirin ilaahay waa dhaaranaya wallahi waa idin imtixaamayna waa idin jarabayna waa idin imtixaamayna waxaanu idinku imtixaamaynaa gaajada wax ka mid ah cabsi wax ka mid ah baqdin iyo cabsi iyo colaad ayaanu idin gelinaynaa markaasaan eegaynaa xaalkiina gaajaanu idinku imtixaamaynaa waxaanu idinku imtixaamaynaa maalka oo aanu idinka nusqaamino xoolihii baa lagaa laynaya geeli baa baxaya oo adhigii baa xanuun u imanaya waa baxaya oo beertii baa xumaanaysa oo markabkii baa degaya oo deynkii baad waayaysaa oo xoolihii baa khasaaraya waa lagu fiilinaya waxaan waa lagu dhiibay adigoo qaawan ayaa uurka hooyada ka soo baxday waxba aan hayn xitaa magac maadan lahayn kadib baa magac lagu bixiyey kadib baa waxaan heshay kadib baa waxaan isku hagaageen axad baa waxaa maamulaya qorshaynaya waa lagaa qaaday adoo lagugu imtixaamaya dadka kuwaad u jeclayd baa lagaa dilayaa wiilashii gabdhihii xaaskii waalidkii walaalkii saaxiibkii garabka ahaa isha ku haysay baa lagaa dilayaa ilaahay waa ku imtixaamaya subxaana wataala bal inaad cabatid oo qaylisid iyo inaad sabirtid midhihii iyo beertii ku baxday baa lagaa halaagaya wabashiri saabiriin kuwa intaa wax ka mid ah haddii la markiyo sabra u bushaaree waa kuwa loo bushaaraynayo الذين إذا أصابتهم مصيبة وكوا مركي دباتدو كدعدو أورانيا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ومعنيه هدو يها أنك إلهي بان عليه كتغي إلهي بالله دنتي مال كان بحي إلهي بالله قف كان نغا دنتي إلهي بالله أنك إلهي بان عليه سيدو دونو ألا نغي يلي كاتغي وركي بداية أنك بابا أسعنا حق الله الدولة ليه هي باتح إنا لله وإنا إليه راجعون مركز الله وحوله سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم والرحمة
kuwa caynkaa sifadoodu tahay ilaahay wuxuu tilmaamay kuwaasi dushooda waxaa ah salawaat baa dushooda ah ammaan iyo naxariis ayaa dushooda ah waana wa ulaa'ika hum lmuhtaduun waana kuwa hanuunsan ba alla yidhi subxaana wa tacaala